wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Said oo ay weheliyaan mas'uuliyiinta wasaaradda beeraha waxa ay saaka kulan la qaateen guddiga joogtada ee golaha wakiilada Somaliland kulankani oo warbaahintu dibad joog ka ahayd markii uu soo dhamaaday kulankaasi waxa warbaahinta si wada jira ula hadlay oo ka warbixiyay waxyaabihii uu daaranaa kulankani wasiirka horumarinta beeraha Somaliland Axmed Muumin Said iyo xildhibaan Axmed Maxamed Qabille oo ka mid ah guddiga joogtada ee golaha wakiilada mug weyn ayaanu kala qaadanay su'aalo badan baan isweydaarsanay si mug iyo miisaan laba wasiirka iyo baalashiisuba ay uga jawaabeen warbixinteeduna waxay hortagi doontaa goloweynaha oo sabtida soo socota sabteeda furmaya aad iyo aad baanu wasiirka ugu mahadnaqaynaa sida uu u soo ajiibay imaatkii halka noogu yimi runtii waddanka aynu ka jaarkana Ethiopia xiriir wanaagsan baan dhex maray wasiirka deegaanka dawladda deegaanka Ethiopia oo runtii aanu ka wada hadalnay in waagi dhawada ay hawsha wax badan nagala qabtaan marka runtii ay waddanka oo dhan buu ku baahay dalka Ethiopia culays badan baa saarnaa dibadna ay inta badan xagga Ethiopia iyo badnaa marka iyaga laftoodu dhibaatada intii la tacaalayeen wayna soo waan ku heshiinayna soo gaaraan laakiin wayna soo gaari kari waayeen iyaga dhibaatada oo iyaga ku baahay darteed laakiin imikana runtii saaxiibaanku inoo sheegay waxa maanta noo yeedhay guddi hoosaadka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland yeeritaanka runtii waa dastuuri waxay golahu guddidu waxay xaq u leedahay inay wareysato mas'uul kasta oo qarankan xil u haya waxayna ka wareysanaysaa shaqada uu mas'uulkaasi hayo marka aniga iyo teamkan wasaaradda horumarinta ee kala socda warqad qoraal oo official ay noo soo direen guddidu inay nala kulmaan maanta oo Arbaca bisha tahay 5 subaxnimo sidii qoraalka warqadda runtii ku qorayd muxuu ahaayay waanu mas'uuliyadda nasaaran saano anaguna u gudano iyagoo golaha xaq u leh runtii guddi hoosaadku xaq u leh inay sanad walba markuu dhamaado na wareystaan dabeedna weydiiyaan shaqadii qarankan aanu haynay shacabkayga Soomaaliland u haynay maxay ni qabsoomay maxaa caqabadayna hortaagan kullay kulankaygu wuxuu ahaa kulan lagaga wada hadlayay wasaaradda iyo waxyaabihii noo qasoomay iyo caqabada imika noo hortaagan runtii guddidu muddo saacad iyo waxoogaa ayaanu iswareysanaynay su'aalo badan oo waafayna weydiiyeen su'aalahaasi waxay ku saabsanaayeen uun shaqada wasaaraddeeda runtii anaguna waxaan uga jawaabnay anagoo weliba sidanay warbixin qoraala guddida hor dhignay wixii aanu afka ka odhanayna waa ka nidhi waxaa kaloo iyagana la wadaagno siinay warbixin qoraala oo sanadkan wax soo saarkaygu halku maraya ah iyo caqabadaha na hortaagan iyo tallaabooyinkaan qaadnayba waan uga warbixinay guddidu say noo sheegtana waxay la wadaagayaan iyaguna golaha wakiiladu markuu fasaxa ka soo noqdo halkaasay warbixintana kolley ka jeedin doonaan aad baan runtii wasaarad ahaan iyo tiimkan wasaaradda ay la socdaba uga faraxsanahay inaan guddiga hoos nimaadno Iid Maxamuud Xasan Kalsan TV Hargeysa